بسم الله الرحمن الرحيم كله وعنا وناسة صاحب يال كيما ميل والبا جوجتان حالad walba ku sugantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena kaftan iyo qraaxo oo toddobaadkii maanta oo kale Arbacada si toos ugu daawataan bogeyga Facebook aad fataxnaan isla YouTube-ka aad fataxnaan YouTube saaxiibada YouTube-ka ku xiran waxaan aad ugu codsanaa muuqaalka ay daawanayaan in subscribe inoo saaraan si lama saaxiibada Facebook-ga hanoo like gareeyaan muuqaalka oo share gareeyaan saaxiibadiina sida caadiga toddobaadkan hore sida ugu aragtay page-ka waxa ku balasan حويا كوحدة رسن أنا عياريهن لجن عياريهن شكي أيانا تضبط كان برامج كنا كفتني قراءة قبل سنة شكي سلو والله هذا ما استاهل صاحبك يفتحناني سيدونك سنة يوعزون تبرامجك أنا كفرح سنة أنا خايف هذا برامج كفتني قراءة هذا ما صنت هاي صاحب نسيت هذا لوجي جبتنا نعود سجن أنا كعجم هذا نسيت عادي تونك سؤالي نحتاج سدح سؤال دقيق صاحب بدك سوي ديناين iyo su'aashii dhaxtaalka ahayd ayay noo dhiman bal toban su'aalood inoo guda gal waraqada la sheekay maanta ku jira godkii la arki doonay okay su'aasha koowaad heegan iyo raadsan dabcan wallahi waxa waaye waa heegan kooxan ka tirsanaha waaye oo ilaa haatan ilaahay sax oo milkiyadeeda iska leh sax ama aan ku jooga raadsan xil ciyaareedka hore sidoo kale midnimo waxa uu soo ciyaaray ama qof walbana waxa waaye meeshuu joogo mar walba ka tirsan yahay sax marka waxa dheela aniga raadsan waa gartay su'aasha la noo soo qabo su'aasha labaad ayaan eegi doonaa markaan su'aasha koowaad uu ka jawaabay tii labaad macallin Farayare iyo macallin Cabdi John معلك هاتا كوحدة هاي معلم محمد عبد الله فريرة ومعلم ناشونال تيم الأخير عالمي كان مذا معلمين تقدم قوة وين سيدو كلام معلم عبد الولي أصيغنا وحاوي معلم لوجيه مقعي مقام كل يوم بدعكتها أنا هان مركان كهلو جوزكي وعقاد لها مع العبد الولي مع العبد جون صوته وقت قروح بين ويقروح بين صوت قادني مركا كشخص أنا مع العبد جون اللي لها وقت إيش سد حد ما سوقه سؤال سدحات وسؤال يقول هاي لمبازا يو كابتن ياسين أول واحد بربرني قال عوانك هي اللي راتسن وقصعد مركب صدق قشرات سدح ذي والله وحواي راتسن يرتدي وجوك تلمان هذا سجعلهم أصحابه واي قف الملي كانوا مجرو قف البنو حواي وحو ليه قف هذه مرة بقولوا ما يصاحبيه ولا بعيرته كوه كوه ترسم إنك ياسين هاتن وهيجن عادي لكن أنا هان وحادي سكول هنا صاحبك ياسين ياسين قاعد سفاح واجد سواش أفراد نص قبو سواش أفراد سواش أفراد ملابو قواي يحزازي ولaba ciyaartooy dalka magac iyo maqaam ku leh qof walbana og yahay heerka uu ka yahay kubadda cagta waa ciyaartooy qadax ka wada ciyaarta ilaa heer qaran dheelay national team wada matalay marka ani ahaan ra'yigayga mar walba maadaama barnaamijku mid dooro yahay waxaa dooro lahaa qubaay su-aasha dhaxal noo soo qabo su-aasha lahade markaan waa cabdicasiis catoosh iyo daawud tubaal waxaa la arki jiray barbardhig inuu ku socday tartanka dad oo isku position ah marka waa meel kale kala dhacday meel laga filin marka labadooda ciyaartooy aan jeclahay waan ku taageeray kooxda LBBJ waqtigooda qurux badan ay ku soo wada qaateen marna waxay wada mataleen kooxda dekada waa ciyaartooy ayagana waxa waaye dalka magac weyn ku leh mar walba barnaamijka mid dooro waay oo wuxuu daarnaa hadda ciyaartooyda qaar oo kala eexday laakiin ana ahaanteeda waxaa dooranaa Daawud Cabdullaahi Tubaal waa kasna soo qabo su'aasha kale okay macallin Gadaamo iyo macallin Cali macallin Gadaamo iyo macallin Cali waxa waaye macallimiin ayaga waxa waaye wadanka ayagana in badan ka soo wada shaqeeyay ciyaartooy hore ahaa in badan waxa waaye koox soo leeli dabcan macallin Cali haatan
aniga ciyaartooy ahaan islama shaqeyn dekadii almano macalin u ahaa marka waxaan waqti wada qaadan oo isla shaqeynay macalin gidaamo hal janaal daawud isla shaqeyn oo janaal daawud la soo dhaaf ahaa kadib waxa waa kooxda waa iskaga tagay arrimo u qaas oo safar u lahaa marka mar walba aniga waxa waaye hadii ciyaartooyda ugu duween ma sheegin laakiin ana qofka ana la shaqeey mar walba inta badan waxa waaye aan arkaa dabcigiisa wixiisa marka macalin gidaamo qaada lahaan ahaan okay su'aasha kale soo qabo واتي لحد MCC iyo Genyo hadii lagu reebo dooro ina ku biirti dabcan ani ahaanteeda ciyaari ahaan ka ahaan sheekay horta waagii hore horyaalka intaan ku soo biirin ama aan qayb ka noqon xataa geeri jiray kooxda LBBJ waqti quruxda badnaa ay banaadir aad u xafaaltamayn waana laba koox oo ka dhisan xaafadeeda horta nabadda marka ani ahaan waxaan dooro lahaa LBBJ okay talo soo qabo inaad bilison lisay inaad rigoor lisay ka jeceshahay wallahi bilizonka xirfad waaye oo inta badan ciyaartooyda ay ku tababartaan always injir wax firkiga dhaliye rigoor waxa waaye iyadana waa iska kubad inta badan 70% ama 80 markii la dhiga la xisaabshina goal tahay save kala sameyn kara ama qasaarinta qofka uu sameyn karo overkeeda way yartahay mar walba qofku midii u fudud oo goal ku xaqiijin karo uu dooro lahaa ana rigoor aan dhihi lahaa maadaama dhaga fiican oo firkiga ay fiican okay siyaasi alaad walaalka iyo saaxiibka walaalka kulashii saaxiibka walaalka la shaqo waa baa iyo saaxiibka walaal mar walba lama horaan waay saaxiib saasay taan waxa asigana qof mar walba xaaladda saxda ay ka warhaay laakiin walaal wada dhasho waay god kaliya adan kala reebaa mar walba marka walaalan qaada lahaan si toonaad waa tan furdeedaas kala taas sida joogtada okay to waxa waay jaceelkaada iyo walaashaada wallahi su'aashaas dadka qaar way dhibtaa sax laakiin mid u fikiraya ma ahan oo aan waa ka fikira mar walba aan walaala iga qiim badan wax walba walaashaada sababtoo ah qofka jecesha waqti iyo waxba idin ka dhaxeeya way ahaan kartaa inuu ilaahay isku daro wax calaf iyo wax si ama saartiin inuu ilaahay ka yeelo way noqon kartaa inaysan noqon walaalka laakiin mar walba kala hareysin godob kala hareysin oo magac iyo wax walba isla wadatiin aan mar walba waxa waay mid u fikiraya xataa ma taa shaki galaan ahaanteeda waa gartay sida caadiga ee sheekay 10 su'aal waa dhameynay su'aashii dhextaanka ayaan gudagal sida caadiga waa su'aal laba dhinac u dhici karto mid ayaa dooro doontaa waa inaad sheeko noogu sheekayso kubadda cagta ku saleysan horyaalka ciyaaryahan ku dhacday ama adiga kugu dhacday ama inaad hees noo qaadaa aan ahaanteeda horta waxa waay ma dadka heeso oo macnaha waxaas talent kula mihi wax hore laga bartan ma hataa waa sameyn hadaa dho waxa laga yaabaa in dadka qaar ay la yaabaa hataa sidii macnaha u sameyn lahaa in si sax loo odaga baxaa waay macnaha saan booha marka isku ma fiicnin sheekada noogu sheekay sheekada waa iska jiraan sheekooyin dhacdooyin badan oo hal dhacdo oo short loo soo qabo oo ku soo badan wallahi waxa waaye hadda is dhaho markaan horta kubadda cagta kusoo biiray waxaa ka tirsanaa kooxda aan kusoo baxay haatan ilaa hadda aan aaminsanayo maadaama magacaan ayada i yeeshay kusoo baxay oo xool haatan serbida ka dheesho xisaab marka inta badan waxaa jira isku dhufsado markii horyaalka oo heerka labaad gaaro kale kooxda ay relegationka ordays oo kale ciyaartooyda marka kooxda ay sheeg joogto oo kamid ah saaxiibkay Zeke Axmed Carabaha Turki jiro mursal Xuseen Aadan mursal boos Jarmal jiro kabtan kooxda aha mar walba soo halmarkii tababarka la aaday xogaa gaab kooxda waxaa jira inay sii dhacaysa heerka labaad anagoo ku cusbaayo wuxuu ahaa sanadkii koowaad horyaalka dheelay mar walba aad tiraahdo warsaa laga bedelo ku leeyin waa iska dhaaf waxaan xisaab la isku dhufsado waay heblaan ka badinayna saddexda ciyaar sagaalka dhibic banaanka alla marka sidii saddex dhibic xisaabta socoto kooxda hoos la waxa rootay marka dhamaatay waxay dhaheen waa sameeyna laakiin 12 horyaalka laga dhigaa
ilaa hata marka way jirtaa kooxaha qaar markay dhacaan waxaa loogu sheekeeya xataa sanadka oo socda 12 weligeedna oo socona ilaa inta constitution laga bedela marka sheekadaas ay u dhacday badneed oo yaabka badneed وقرتي هذا بعض حساب قلدني xisaab qaldaneed waa mar walba subax walba markii nagta la soo dhawaayo biri waa ma yahay bilaa laba kooxaas kale oo nagu faco ku xisaabtameen camal dhibco lix dhibic ta kale 3-9 waa joognaa badbaadina insha Allah dhowr mar intaas horyaalka ugu fakadaysa ii sheegeen وقرتي markaan waxaan guda gali doonaa su'aalaha saaxiibada kusoo weydiiyay dhankii page-ka saddex su'aal ayaan ka soo qaadan doonaa oo saaxiibada inkastoo saaxiib badan su'aalo kusoo weydiiyeen waxaan kusoo weydiiyey shakhsi ay Facebook ugu qoran tahay waa Axmed Hagaazi laana waxaad ii weydiisay guushii ugu farxada badneed ama guushii farxada badneed oo ka gaaro footballka waxa waaye guul aad u farxad badan oo qof walba guuli waxa uu diiwaan gashan dabcan waxa u fahmay su'aasha ay weydiinayso guusha yarta noqoto xaafadda ama deeliga ta mid inay noqoto oo farxadeeda kacis iyo dareenkii wallahi guul far badan horta jira gaaray haday noqdaan xaafadeed iyo haday noqdaan ay sheegay mid caalami ah inta badan guusha qofas iyo fiiriya dadka qaar waxay ka fiiriyaan koobkii aqaaday ama ku dagaalantay oo guul ah qof wuxuu fiiriyaa ciyaartii kuugu ahamiyada badneed asaartay oo ku dagaalantay isheeg asleeda guul 100% waa ka gaartay midee noqon kartaa macnaha qof walba macnaha saas wax u fiiriyaa as ahaantiisa markii guusha la fiiri ani marka waxaan ku fiiri lahaa guul inta badan aan isleeyahay waa gaartay ciyaar aan dagaalanay oo inta badan la dhahay xataa ciyaarta natiijo intaas leego over ma ka iman karto waxa waaye ciyaartii kooxda kubadda cagta raadsan aan la dheelnay horyaalka heerkii had sanadka hadda la soo dhaafaan dagaalana oo macallinkana hogaaminaya Macal Cabdi oo la isdhihi kara guushan ma iman karto ciyaar aad u adag xafaaltan badan jiray oo si u dagaalamayna anaga ahaan ciyaartooy hadaan ahaan ciyaar dekada laba hal uga badanay oo horyaalka hadda la soo dhaafay dhaawacaan ku baxata aniga markaan tagay isbitaalkii every ku baxay hadhow gacantii xataa joogay gaartay marka ciyaartay dhow dhamaatay mar dambe waxoogaa miirkeyga soo fiicnaada ciyaartooyda ugu maadanay leeyahay waa badanay 70 daqiiqo mareys marka xataa dhaawac maayo marka every ku baxay guul aad u qiimo badan ahayd marka taas asleeyahay xasuus ay ugu reebtaan ahaan waa gartay su'aasha labaad haddii aan ku weydiiyo waxaa kusoo weydiiyey Ismaaciil Cabdullaahi waxaad ii weydiisaa waa kuma saaxiibka dhabta horyaalka Soomaali Premier League dabcan ni horta horyaalkan asxaab badan ku leeyahay qof qaas hadda dhigi kara hebelkaas ku leeyahay ma jiro qof walba si gooni oo macaamilna iyo asxaab gooni aan ahay shakhsi amaanta dhigi kara hebela saaxiib ii dhow ma jiro qof walba wanaag iyo waxa naga dhaxay ixtiraam inaan isku fogaano isdhex galno isla sheekeysana jeclahay marka qofkaas hebel waa ma dhigi kara sida xaqada marka u hadlo waa aan ka been abuurnayn waa gartay su'aal saddex su'aal ka soo qaadan su'aasha ugu dambaysa Cabdinuur Waarka ma jeclaan lahayd inaan garoon isla galno anoo kabtankaaga ah sheekay Cabdinuur marka uu hore waa salaama saaxiibka Khaaliga waa nin dhiirigeliye sports waa nin la garanayo magaciisa marka 100% waa ku farxsan su'aasha soo weydiiyay horta dabcan marka ciyaartooy tahay qof kasta adiga darajo walba uu joogo haduu yahay maamul haduu yahay qof ku taageero haduu yahay cunug ada magac ciyaartooy xafisanta qof kasta garoon kula galayo maqaamka raba joogo xushmadii gooni ka mudaya aniga qof allaala qofka ila galay garoon kabtan in liina qowliga liisoo haa wali hogaamin jiray dadka kabtanka danayo jecel 100% mi marka qof walba ani shakhsi ahaanteeda Cabdinuur kaliis ma waxaad si guud ahaan Cabdinuur horta su'aashan ka jawaaba inuu hogaamiyo oo ani kabtan in noqdo garoon isla galna 100% ku farxsanahay si guudna waxa ugu sii jawaaba dadka bulshada ah macnaha danay sportska ama dadka taageerayaasha ay ku xiran sportska ciyaartooyda dhiirigeliya qof kasta macnaha ana ahaanteeda su'aashaas waa jeclahay qof kasta garoon la gal haduu yar yahay haduu odayo duq yahay markasta maqaam iyo mansab iyo farxada ay tahay in qof Soomaaliyeed oo hadana ku taageero ama jecel u hay sportska aad garabkiisa aad su'aal ugu badan oo dadka ay weydiiyaan ciyaartooyda waa marka ana ahaanteeda waa jeclahay wax kasta falcelin oo iga imaanay la dheelisdeena noqoto dhan walba 100% qof sportsa oo ku farxa waa gartay Cabdinuur bal ninkan xaafadaha la jirooniyada la isku balansada koodhe kulay horyaal oo igu dhamaatay Cabdinuur nin odayo noqdo markaan Cabdinuur walaal ka kaareeriga waa kaftankeygii sheekada aad u macsan tahay barnaamijkeena intaas aynu kusoo gabeynayna waana kaaga mahadcelinaa sida aad inoogu ajiibtayna maanta barnaamijka ugu casuuno saaxiib badan ayaa soo dalbay sheekay ugu dambeynna waan keenay
saaxiibayaal muuqaalka duwaad aad daawanayso ilaa iminkana aad daawanayso waa inoo midna like inoo saarto noo sheergay saaxiibadaada si aan saaxiibo adigoo kale ah mar walba nala jooga aan u helno intaas aynu kusoo gabinaynaa muuqaalkii toddobaadka ee kaftan iyo qaraaxo waan u mahadcelinaa martida maanta ee sheekay